galaaska saddexaad baan dhiganayay markay igu bilaabatay inaan wax dhadhansado suugaanta Soomaalida ama tixda Soomaalida ilmo yar baan ku ahaa ha yeeshee macallinkii baa naga dhaadhiciyay ninkan dareenkiisa ugu cabiraya geedka wuxuu leeyahay marka geed yahuuma nabad baa gacal baan ahayno garashaan lahayno adigay gardaadsho hoostaadu gogol iyo gogbay ii ahayde carahays galluumina geed yahuuma nabad baa walow ay guyaal tahay waqtigaan ka guureengayigani ka dhoofayna kaamaan gadoomina qalbigayga goonimada adigu gaar ahaan u leedahay dhammaan qof walba mansabkiisa iyo maamuuskiisa ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh sharaf bay ii tahay inaan ka soo qayb galo baalfurka buuggan uu qoray gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi waxaana rabaa saddex kalmadood oo kooban oo mid ay ku saabsan tahay buugga midna ay ku saabsan tahay qoraaga midna ay ku saabsan tahay mawduuca uu ku saabsan yahay ee ah haybsa dhaqankaaga horta waa midda koowaad ee qoraagu waa nin khabiir ah oo Soomaaliyeed oo Soomaalinimadu hadday halbeeg leedahay aan dhihi karo qofka loo soo joojin karo inuu Soomaali dhaba yahay weeye Cabdi Xaashi ummadda tan abaal ku leh laakiin abaal la isu gudo Soomaali ma taqaana ninkaasu aqoon dheer isuma lihin laakiin inta aan ka maqlay ayaa iiga filan iyo inta aan ka arkay tariyeed intuu carrada maamulahayay oo aqalka sare uu gudoomiyaha uu ka ahaa wuxuu ka mid yahay baan aaminsanahay hantida maguuraanka ah ee bulshada Soomaaliyeed ay leedahay ayna waajibka tahay in lagu fara adeego isagoo kale marka oo khabiir ah oo golihii murtida iyo madadaalada gudoomiye ka soo ahaa waqti aad iyo aad u dheer xog fara badan haya khibrad fara badan haya inuu buug noocan oo kala qoray waxay la mid tahay dardaaran waayeel ama dardaaran waalid bay la mid tahay marka buugga uu qoray ninkaas wuxuu noo wadayahay dhammaanteen arrin geli doonta biidnillaahi tacaala kaydka aqoonta ee ku saabsan dhaqanka qodobka xiga buugga haybsa dhaqankaaga qofku haddii aanu dhaqankiisa ku dhegin oo dhaqankiisa aanu aqoonin booska uga bannaan dhaqangalka ama dhaqanqabashada ee maskaxdiisa iyo jiritaankiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa dhaqanna aanan kuwiisa ahayn ayaa buuxinaya dadkuna inay dhaqankooda yaqaanaan waa laga maarmaan waa maxay dhaqan baa la is weydiin karaa dhaqan waxa weeye isku jir ka kooban habdhaqanka bulshada ee kala duwan akhlaaqdeeda qiyamkeeda cibaadadeeda martisoorkeeda colaadeeda nabadeeda barwaaqadeeda waxa la yiraahdo ii sheeg jiilaalkeeda amaba se diraacdeeda qaabka ay ula falgasho dagaalkeeda nabadeeda qaabka ay ula falgalaan iyo waxa uga yaala ee soo jireenka ay abka soo gaarka ah ayaa waxa la yiraahdaa dhaqan la yiraahdaa mid walba oo kamidana ummadda Soomaaliyeed waxa uga yaala laakiin markaynu baran weynay ama aan ku gul daraysanay inaan dib u daraasayno sheekooyin kale oo ku tirkuteero sheeka baralay ah baan loo soo wariyay kaasana la kala geeyay tusaale ahaan marka dib u raacdo sheekada hadda uu noo sheegay ninka la yiraahdo Yaasiin Wardheere khayr Allah siiyo kaligeed baa 10 laakiin shisheeyaha iyo cadawgu markay ku yimaadaan sheeko kale ayay ku alifayaan haddaysan kugu jirin sheeko murtiyeed abka soo gaaro sooyaalka ay ka taariikhaynaya waxaan naloo keenay marka sheeko Soomaalida lagu kala geynayo oo ilaahay kuma sabandiiday booska dhaqanka naloo gelinayo maadaama qalinka iyo dhigaalku uu nagu cusbaa Talyaanigaana noo keenay waxa ka mid ah sheekada nin Caraba ka yimid badda geed buu fuulay waa loo yimid laba nin baa u timid wuxuu yiri inaan qof dushiisa ku soo dega ma ogiyo soo degi maayo nin baa diiday kii kale uu dusha kaga soo degay waxa wax Soomaali leedahay maaha wax islaam leeyahay maaha laakiin waxna lagu kala goynahay halka cuqdad ka bilaabatay baa waxay gaadhay ilaa jiyaashii dambe ilaa inta la booday xaq soo degay limaada gaab baa ku jiray meesha iyadoo horta sheekadan ma jirtaa sidan inay wuxuu dhicin ma jiraan dadka soo wariyay waa ilmaayo ilaa anagu sheekooyinkeena sanad iyo taxan ay leeyihiin oo hebel baa ii sheegay hebelaayu ka maqlay hebel buu ka sii maqlay awgiisa uu sii sheegay waa ma jira maya waxay ku dhamaatay sheeko Talyaani ah oo iskuulada lagu dhigi jiray oo uu ku sawiran yahay nin geed saaran iyo niman hoos taagan oo fiirinaya iyo qof dumar oo dhinac taagan sheekada noocaas oo Talyaani way alifeen bay Soomaalidu tan iyo yawmina hada isugu cuqdadaysan yihiin cid naqdisayna lama arko dhaqanka marka hadii la qori lahaa
oo laga dhigi lahaa wax yaala oo reference leh oo dib loogu laaban karo wax badan oo caynkaas oo qusacbalaada oo nalagu kala geenayo ayaa looga badbaadi lahaa taas waa qodob weyn taa marka waa midda buugga iyo ahmiyadda uu leeyahay wuxuu ka hadlahayaa naxwii afka Soomaaliga wuxuu ka hadlahayaa mahmahyi wuxuu ka hadlahayaa af Soomaaliga iyo qaybuhu ka koobnaa tixiya tiraab inuu kala yahay يعني تحدا iyo tiraabta af Soomaaligu uu yahay macna weyn baa ku jira qofka aan aqoonin suugaantiisa qofka aan aqoonin dhaqankiisa qofka aan aqoonin yani dhadhanka isku dhaca afka Soomaaliga oo aanan sheeqsanin qofkaas boosishikiisa Ingiriis baa u galayo oo Sawaaxili baa u galayo oo luqado kale u galaya ma garanaysa Carabigu waa ka reebaya Carabigu waa luqadeeni weey waa luqadii Islaamka qof walba Islaamana waa ku qasban yahay inuu barto waayo islaamnimadii barashadeedii baa la xiriida oo maxaa la yiraahdaa calaaqa la leh culimaduna waa tay dhihi jireen ma la yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajib laakiin luqadaha kale iyo dhaqanada kale luqad walba oo jirta waxay xambaarsan tahay dhaqan bay xambaarsan tahay marka afka Soomaaliga oo loo barto si waxa la yiraahdo maaratay mugle ama qoto dheer waxay saamaxaysaa inaad ku raaxaysato macaansato tixda iyo tiraabta iyo murtida iyo mahmaahda afkaas uu leeyahay haddii waxba kaaga bilowna laakiin maxaa dhacaya booska wax kala buuxinay galaaska saddexaad baan dhiganayay markay ugu bilaabatay inaan waxa weeye dhadhansado suugaanta Soomaalida ama tixda Soomaalida gabay ku saabsanaa nin u gabyahay geed ilmo yar baan ku ahaa ha yeeshee macallinkii baa naga dhaadhiciyay ninkan dareenkiisa ugu cabiraya geedka wuxuu leeyahay marka geed yahow ma nabad baa gacal baan ahayno garashaan lahayno adigay gardaadsho hoostaadu gogol iyo gogbay ahayde caraha isgalumina geed yahow ma nabad baa walow ay guyaaltahay waqtigan ka guureengaygan ka dhoofayna kaamaan gadoomina qalbigayga gaar baad adigu gaar qalbigayga gooni baad adigu gaar ahaan u leedahay afka Soomaaliga waa af islaamay qofkii af Soomaali bartoon muslim ahayn markuu hadlayo muslim baa loo maleynaya limaada kalimaadka ka buuxo dhanba waxay tilmaamayaan islaamnimo war ilaahay ka cabsaday ka bilaabayaan subhanallah war maxaa tiri insha Allah waan soo iimaanaynaa qofku waa hindisaya alxamdulillah buu leeyahay marka afka sida uu islaamay oo qaniga aba ilaahay nagu manaysay subhanahu wa ta'ala hadii aan barana marka dhaqanka waa dhowray waxa soo haray oo qodobka ugu dambeeya uu yahay kaalinta nooga aadan inaga ilaalinta dhaqankaas kaalinta nooga aadan waxa ay tahay bal dhaqankeena inaynu dib ugu laabanno oo aynu eegno halkee baynu ka joognaa oo aynu iibino oo maxaa la yiraahdaa xitaa wuxuu leeyahay labis buu leeyahay labiska uu leeyahay aysan bedelin dhaqanno kale oo dool ah oo inagu aynan lahayn biidilaahi tacaala cunuu leeyahay oo aysan bedelin dhaqanno kale oo dool ah martisoor buu leeyahay gobonni buu leeyahay geesinni buu leeyahay waa luma jar waxaan ku soo gabagabaynayaa waxa ay tahay buugan waa buug astaahila una qalma maktabad walba oo guri Soomaaliyeed inuu ka dhax muuqdo biidilaahi tacaala كحزب أهان حزب جوبنيم بإذن الله تعالى تروك كبده بان أننا قادن دونا إن شاء الله أننا كده ينين وقرال فردوسو أننا كده ينين للرجالين وقدر إن شاء الله تعالى قراءة يو نكال يرهدو ياسين ورداره أو تفتربوجا أدبد نباسنتي